بسم الله الرحمن الرحيم برقو wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabin gaar ah aynu ku eegi doono wararka ugu waaweyn ee xilligan ka taagan gobolka Bariga Dhexe waa 8 bisha July sanadka 2026 tabintan idin hayana waxa kamid ah ciidamada Mareykanka ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday jasiirado iyo magaalooyin ku yaala gudaha wadanka Iran iyadoo la soo warinayo in dhibaatooyin ay ka dhasheen weeraradii ugu dambeeyay Iran waxay sidoo kale saaka ka jawaabtay weerar rogaal celin ah iyadoo tilmaantay in ilaa iyo 80 goobood oo kala duwan ay weerar ku qaadeen oo kamid ah gudaha wadamada Bahrain iyo sidoo kale wadanka Kuwait isla markaana waxyeello ay soo gaartay sida ay ku dhawaaqeen ciidamada wadanka Iran saldhigyada Mareykanku ku leeyahay wadamadaasi haddaba weeraradii ugu dambeeyay maxay salka ku hayaan ilaa iyo haddana maxaan ka ognahay qasaaraha kala duwan talisyada Qatar Olympia iyo Centcom oo Mareykanka iyo Iran kala ah ayaanu idinkaga haynaa warbixino kala duwan oo ay ka soo saareen dhinaca dagaalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku sugan wadanka Turkiga ayaa lagu soo waramayaa in uu bixiyay amarka weerarka lagu qaaday gudaha wadanka Iran xalay dhinaca kale markaan eegnana Qalibaf ayaa isna war ka soo saaray duqeymahaasi ugu dambeeya iyo waliba sida ay wax u dhaceen dhinacan kulul ayaa loo jeediyay dawladda Washington ninka hogaamiya gaashaanbuurta NATO waxa uu ku dhawaaqay in ay ahayd wax wanaagsan weerarkii lagu qaaday xalay gudaha wadanka Iran haddaba hadalkiisa sidee loo macnayn karaa ilaa iyo haddana maxaan ku ognahay weeraradaasi qodobadaas ayaan khiyaarta nala socotay oo si gaar ah ugu faaqidi doona barnaamijka xilligan aan idila socodsiinayo aynu ku eegi doono dhacdooyinka ugu dambeeya dagaalka jasiiradaha la weeraray iyo sida ay wax u socdaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara dhamaantiin aad baad u mahadsantiin ku horeeyo war degdeg oo hadda soo baxaya qarax ayaa laga maqlayaa in uu ka dhacay gobolka Bushehr ee dalkaasi Iran iyadoo la soo warinayo in xaaladdu iminka ay u muuqato mid aad u adag inkasta oo taliska Centcom ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe uu ku dhawaaqay weerarkii duqeyntii ay sameeyeen xalay in ay soo gabagabeeyeen haddana wakaaladda wararka Al-Mehra ee laga leeyahay wadanka Iran ayaa tabinaysa dhibaatooyin iyo waliba qaraxyo laga maqlay qaybo kamid ah gobolkaasi ama magaalada Bushehr la yiraahdo ee ka tirsan wadanka Iran wakaaladda wararka Iran ee Mehra ayaa sheegaysa in dhowr qarax laga maqlay magaalada Bushehr iyo deegaanada ku hareeraysan wakaaladdu waxay xustay in aan wali si rasmi ah loo shaacin sababta qaraxyadaasi iyadoo aan la bixin baa la yiri faahfaahin ku saabsan qasaaraha ama goobaha sida tooska ah loo beegsaday ilaa iyo hadda dhinaca kale Al-Mehra waxay beenisay wararka tilmaamaya in qarax laga maqlay sidoo kale jasiiradda Crack iyadoo cadaysay in xogtaasi aanay ilaa iyo hadda sax ahayn mas'uuliyiinta Iran ayaan wali si rasmi ah u sheegin qaraxaasi iyo waliba qasaaraha rasmiga ah oo ay sababeen weeraradii ugu dambeeyay dawladda Iran ayaa ku dhawaaqday in ay soo riday diyaarad nooca iswada ah oo dawladda Mareykanku ay leedahay oo la yiraahdo MQ-9 Raptor oo kamid ah diyaaradaha duuliyaha lahayn ee ah kuwa ugu qaalisan ee Mareykanka diyaaradaasi ayaa ku fadhisay qiimo lacageed oo gaaraya ilaa iyo 30 milyan oo dollarka Mareykanka iyadoo xiisada gobolka la soo warinaya hadda inay aad u adag tahay afayeenka ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in difaaca cirka ee dalka uu soo riday diyaarad aan duuliye lahayn oo Mareykanku uu leeyahay oo nooca MQ-9 ah xilli ay ku jirto baa la yiri hawada gobolka Bushehr ee koonfurta wadanka Iran sida uu sheegay afayeenka diyaaradda ayaa lagu beegsaday laguna burburiyay nidaamyada difaaca cirka ee Iran isagoo tilmaamay in ay ku xadgudubtay hawada wadankaasi ilaa iyo hadda si rasmi ah loogama jawaabin sheegashada Iran ee hadalka ku aadan Mareykanka ilaa iyo hadda soo ma bixin sida ay tilmaamayaan sarkaal sare oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay
bartilmaameedyadii ay ka fuliyeen weeraradii ugu dambeeyay ee gudaha wadanka Iran ka dhacay xilli xiisada ay u muuqato wali inay kacsan tahay oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan eedayn aad u culus. sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in warbaahinta The Axios uu waramay waxana uu sheegay in weeraradii lagu qaaday Iran ay ku beegsadeen xarumo iyo qalab military oo muhiim ah. sida uu sheegay sarkaalka bartilmaameedka la weeraray waxaa ka mid ah nidaamyada difaaca cirka ee dowladda Iran oo duqeymaha ay la kulmeen qalabka kormeerka iyo waliba raadeerada xeebaha yaalla baa la yiri ayaa sidoo kale gantaalada ciidamada Mareykanku ay garaaceen gantaalada dhulka laga rido iyo waliba lidka diyaaradaha dowladda Iran ay leedahay iyo kaydad ay lahayd ayaa la burburiyay sida dowladda Mareykanka ay doodeeda u dhageyso goobaha kaydka lagu hayo gantaalka cruise-ka ayaa sidoo kale la sheegay in laga hortago weerarada maraakiibta in weerarka lagu qaaday saldhigyada iyo goobaha laga rido diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ayaan beegsana ay leeyihiin Mareykanka qaar ka mid ah xarumaha dekadaha gudaha Iranna weerar ay la kulmeen kadib markii la sheegay dowladda Mareykanka ciidamadeedu xalay weerar silsilada oo ay ku tilmaameen mid argosy inay ku qaadeen gudaha wadanka Iran. sarkaal Mareykan ayaa sheegay in weerarada ay ahaayeen kuwa lagu bartilmaameedsaday awoodda difaaca iyo weerar ee Iran gaar ahaan kuwa la xiriira amniga xeebaha iyo dhaqdhaqaaqyada badda ayaa lagu yiri warkan. arrintan ayaa waxay u muuqataa inay tahay mid aad u adag. dhinaca kale markaan fiirino wararka soo baxaya waxay sidoo kale tilmaamayaan in taliska CENTCOM ee Mareykanku ee gobolka bariga dhexe u qaabilsan uu war ka soo saaray weerarkii xalay waxaana ay tilmaameen weerarka inuu ahaa mid argosy iyadoo duqeymaha sidii loo qorsheeyay ay u dhaceen sida qoraal ay soo saareenba ay ku sheegeen. taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee qaybta bari ee CENTCOM ayaa sheegay in uu dhameystiray wareeg cusub oo weerar argosy oo ka dhan ah dowladda Iran kadib markii lagu eedeeyay Tehran in ay weerar ku qaaday markab ganacsi oo maraya baa la yiri marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz. bayaanka ay soo saareen CENTCOM ayaa lagu sheegay qodobo dhowr ah waxaana ka mid ahaa in ka badan 80 goobood ayaa la weeraray waxaana lagu duqeeyay baa la yiri hub bartilmaameedkiisu sax ahaa iyadoo la sheegay in ay jawaab u ahaayeen weerarada Iran ee maraakiibta ganacsiga in ka badan 60 doomood oo dheereeya oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa la sheegay in la beegsaday gudaha iyo hareeraha marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz sida taliskaasi warkiisa uu ku leeyahay. weerarada waxaa sidoo kale lagu beegsaday nidaamyada difaaca cirka ee Iran xarumaha talisyada hagista ciidamada raadeerada xeebaha iyo goobaha gantaalaha maraakiibta. CENTCOM waxay sidoo kale sheegeen in ciidamadu ay wali heegan buuxa ku jiraan isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan Iran haddii ay u hoggaansami waayaan heshiiska ama ay jabiso baa la yiri qodobadiisa gaarka ah. taliska Mareykanku waxa uu tilmaamay in weerarada Iran ee maraakiibta ganacsiga ay yihiin gardarro aan marmarsiyo lahayn iyo jabin cad oo heshiiska lagu sameeyay yahay mid ay dowladdaasi ka jawaabi doonto. bayaanka waxa uu imaanayaa xilli xiisadu ay aad uga sii darayso isla markaana ay adag tahay in gobolka xaaladiisu hadda si caadiya lagu soo celiyo. dowladda Mareykanka ayaa sarkaal ka tirsan ciidamada waxa uu tilmaamayaa amarka weerarkii xalay lagu qaaday gudaha wadanka Iran inuu lahaa madaxweyne Donald Trump oo ku sugan gudaha wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara uga qayb galayo shirka wadamada gaashaanbuurta NATO sida ay ku waramayaanba qaar ka mid ah khubarada oo si gaar ah u falanqeynaya weerarkan. sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay majalada The Axios in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ansixiyay qorshaha weerarka lagu qaaday Iran isla markaana uu bixiyay amarka fulinta isagoo ku sugan dalka Turkiga si uu uga qayb galo shir madaxeedka wadamada gaashaanbuurta NATO. sarkaalkan waxa uu sheegay sidoo kale in jawaabta military ee lagu qaaday Iran ay ahayd mid toos ah oo ka dhalatay waxay ku tilmaameen falal argagixiso caalami ah oo Iran ay ka geysatay gudaha marinka Hormuz iyadoo beegsanaysa maraakiibta ganacsiga ee halkaasi gooshaya. mas'uul Iiraani ah ayaa si buuxda u ogaaday cawaaqibka baa la yiri ka dhalan karaya
falcelintooda balse waxa ay hadda door bidayaan in ay bixiyaan weeraradaasi in ay sii joogteeyaan madaxweynaha Trump waxa uu sheegay in qorshaha weerarka isla markii uu bixiyay lagu fuliyay isagoo ku sugan dalka Turkiga in weerarkaasi uu ahaa mid adag dowladda Mareykanka ayaa hadda qiimeynaysa natiijada weerarada kadib go'aanadii ku salaysnaa weerarkaasi in si aada loo fuliyo majalada The Axios waxa ay tilmaamaysaa in weerarka Iran laga qaaday oo ahaa kii ugu adkaa oo kadib heshiiska lagu qaado gudaha wadankaasi sida isla wargeyskaasi uu saaka qorayo warbaahinta Mareykan ee The Axios oo soo xiganaysa saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in weerarka lagu qaaday xalay lagu beegsaday magaalooyin iyo goobo kala duwan oo koonfurta Iran ay ahaayeen kuwa ugu ballaaran uguna xoog badan ee la fuliyay 10 maalmood ka hor sida uu sheegay sargaalka Mareykanka weerarada xalay la fuliyay ayaa 4 ilaa 5 jeer ka xoog iyo baaxad weyn weeraradii hore waxaana lagu bartilmaameedsaday goobo muhiim ah oo dowladda Mareykanku ay si calaamadaysay in weerarkaasi lagu qaadi karo hadalkan ayaa imanaya xilli Mareykanka uu sare u qaaday baaxadda howlgalladiisa militariga ee ka dhanka ah Iran ilaa iyo hadda Iran ayaa u muuqata in aysan gacmaha isi saaran oo arintaasi si aada ay uga jawaabeen haddii aan ka imaado dhinaca dowladda Mareykanka iyo waliba eedaha kala duwan oo ka imanaya waxa dowladda Iran ay noqotay inay si aada uga jawaabto weerarada lagu soo qaaday wadankeeda ilaa iyo in ka badan 80 xarun oo ku yaala gudaha khaliijka ayay dowladda Iran ku dhawaaqday waa barigay saaka inay weerar xoog la ku qaadeen ciidamada ilaalaha xeebaha ee wadanka Iran oo si weyn u duqeeya saldhigga Ali Salim ee ku yaala dalka Kuwait iyo waliba fadhiga ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin wadanka Bahrain gaar ahaan ciidamadiisa badda dowladda Iran waxay tilmaamaysaa weerarku inuu ahaa mid jawaab celin ah oo waliba ka awood badan kii maalmihii ugu dambeeyay ay sameynayeen horay sawirada gacmeedyo ay u qaadeen isla markaana qubaro madax bannaan ay falanqeeyeen waxa lagu ogaaday saldhigyada saaka waa bariga ee ciidamada Iran ay garaaceen in weeraradii hore ay ka soo gaareen qasaare xoog leh isla markaana dowladda Washington bay ka fakarayso isbedel istiraatiiji ah oo lagu sameynayo saldhigyadaasi marka la fiiriyo sida ay dowladda Iran weerarkeeda u qaadeen wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa goor dhaweyd war soo saartay waxaana ay tilmaantay in Mareykanka uu guud ahaantiiba burburiyay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dhinac ay gaareen ku xadgudubka Mareykanka ma aha markii ugu horeysay ee heshiiska tan iyo markii la gaaray joojinta howlaha militariga ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda Mareykanku waxa uu qaadanayaa dhammaan arrimahan si xumaanaya ee gobolka iyo kor u kaca xiisadda ayaa lagu yiri weerarka Mareykanka waa mid ka baxsan qaanuunka waxana uu meesha ka saaraya ruqsadsiintii maraakiibta shidaalka in ay maraan gobolka iyo waliba biyahaasi ku xadgudubkan marinka Hormuz iyo joogteynta weerarada Lebanon dhamaantood waxay noqonayaan kuwa aan shaqeynayn oo heshiiska ay laaleen baa lagu yiri ciidamada kacaanku waxa ay sii wadi doonaan inay ka hortagaan cid kasta oo ku xadgudbaysa marinka isla markaana diidaysa awaamirta dowladda Iran ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay dowladdaasi weerarka ciidamada Mareykanka ay qaadeen baa la yiri aroornimadii saaka waxa ay muujinaysaa in ay xeebaha koonfureed ay ku jireen digniin aad u xoogan sida warka dowladda Iran lagu yiri wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Kuwaitna war degdeg ah ayaa hadda soo saartay waxay leedahay waxaynu aad u cambaareynaa weerarada soo noqonaya ee Iran ee wadankeena lagu qaaday dowladda Iran waxa ay aad u cambaareynaysaa baa la yiri waliba lahjad adag weerarada saaka ay ku qaadeen ciidamada Iran madax banaanida iyo amniga qaranka dowladdaasi waa Kuwait waxaana sidoo kale ay leeyihiin sii socoshada xadgudubyada waxay halis ku tahay heshiiska xabad joojinta iyo hoos u dhigidda baa la yiri xiisadda sii xumaanaysa ee gobolka bariga dhexe dhamaanteen waxaynu doonaynaa gobolka inuu noqdo mid nabada isla markaana dowladda Iran ay ku qasban tahay baa la yiri ilaalinta madax banaanida wadankaasi sida warkooda ay ku sheegeenba goordhow
xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa ku dhawaaqay ninka la yiraahdo Mark Rutte inuu sheegay weerarka lagu qaaday Iran inay gaashaanbuurta NATO ay soo dhaweynayso isla markaana ay yihiin kuwa ku soo aaday buu yiri waqtigii loo baahnaa ninkan oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha dalka Mareykanka weerarada cusub ee dalka Iran waxa uu arkaa inuu yahay xal fiican oo wax lagu gaarayo isagoo magaalada Ankara kula hadlayay saxafiyiinta Rutte waxa uu yiri weerarkan lagu qaaday dalka Iran waxa uu yahay mid wadankaasi lagu edbinayo Mareykankana waxa noo muuqata tilaabo aad u xoogan in uu qaaday ayay leeyihiin isla wararkaasi haddii aan sii eego gobolka bariga dhexe saaka ka imaanaya wasaaradda amuraha dibadda ee Bahrain waxay ku dhawaaqday saaka in xaaladda amniga wadankaasi uu heegan ku jiro tan iyo markii saldhigyada ciidamada Mareykanku halkaasi ku leeyahay aad loo garaacay isla wararka soo baxaya waxay sidoo kale tilmaamayaan in gobolka bariga dhaxaysidiisu ay adag tahay ciidamada ilaalada gacanku waxay leeyihiin ilaa iyo 85 waxyaabood oo howlgallada militariga loo adeegsado Bahrain iyo Kuwait yaalay ayaan burburinay waxaan burburinay bay leeyihiin dhammaan agabka militariga ee yaala baa yiri halka loo yaqaan Usdulul Khamis ciidamada Bahrain ee Mareykanka iyo waliba saldhigga Ali Salim ee Kuwait waxaan sidoo kale ciidamadeenu ay ka hortageen baa yiri ku xadgudubka weerarka argagixisada ee Mareykanka waa sida ay leeyihiin ee ku aadanaa saldhigyadeena iyo waliba goobaheena ku yaala Hormuzgan iyo waliba halka la yiraahdo Bushehr waxaan sidoo kale ka jawaabnay bay leeyihiin Mareykanka in ciidamada badda ee dalka Iran uu arkay inuu yahay mid aan sahlanayn oo laga hortagi karo xaaladuna ay adag tahay dhinaca kale ninka haya malafka wada xaajoodka wadanka Iran la yiraahdo Mohammed Baqir Ghalibaf waxa uu leeyahay Mareykanka si buuxda ayuu uga xadgudbay wadanka Iran weerarka uu ku soo qaaday waxana ay ka dhigan tahay burburinta heshiiskii lala galay waxa uu leeyahay Ghalibaf tani waxay ka dhigan tahay dawladda Iran inaysan aamusi doonin oo aysan ahayn dawladdu qiimo lagu cabsiyo waxa si guud u muuqanaya hadda xaaladdu inay aad u adag tahay oo talisada kala duwan ee Iran sida maqarar Qatim al-Anbiya la yiraahdo ama taliska dhexe Qatim al-Anbiya uu leeyahay weeraradan maaha kuwa la isaga harayo oo waxay noqon doonaan kuwa aan aad u sii xoojin doono si aan uga jawaabno marka gobolka bariga dhexe saaka xiisadiisu waa culus tahay waxaanay u muuqataa in ay ka duwan tahay sidii hore dhinacyadu wali waa isbeegsanayaan iyadoo marinka Hormuz la soo warinayo dhammaan maraakiibta maray lahaa saaka inay xayran yihiin oo marinkaasi mar kale uu go'doon galay khiyaarteena la socota wararkan iyo wixii kale ee ku soo kordha tabinadeena kale ayaan idinku sheegi doonaa soo dhawaada waxaan idin leenahay barqa wanaagsan